ciidamada tababarka loo soo gabagabeeyay ayaa tiro ahaan gaadhaya 1828 askari iyagoona qayb ka noqon doona howlgalka midowga Amisom. Taliye ku-xigeenka ciidanka difaaca Uganda General Wilson oo la hadlayay ciidamada kadib markii loo soo gabagabeeyay tababarka ayaa kula dardaarmay inay si hufnaan leh u gutaan waajibaadkooda shaqo. Waxaad ka tagaysaa Uganda si aad u aadaan uguna biirtaan ciidamada xasilinta Soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda, ayuu hadalkiisa sii raaciyay General Mubadi. Taliye ku-xigeenka ciidamada dhulka ee dalka Uganda ayaa sidoo kale dhankiisa kula dardaarmay inay ciidamadu tababarka loo soo gabagabeeyay ay u shaqeeyaan sidii uu ku jirto wadaniyad iyo akhlaaq. Tababarka saraakiishan ayaa waxa ka qayb qaatay saraakiil military oo u kala dhashay wadamada Holland, Britain iyo Mareykanka. Howlgalkan ciidamada Amisom ayaa lagu wadaa in guud ahaan dalka iskaga baxaan marka la gaadho horaanta sanadkan 2021 iyadoo sidoo kale qorshuhu ahaa inta ka horeysa waqtigaas in ciidamada nabad ilaalinta midowga Amisom in loo dhimo si tartiib ah. Xanaan Faysal Faatax, dalka TV, magaalada Muqdisho.